halkan aan ku sugannahay waa magaalada Stockholm goobtan waxaan ugu talagalnay inaan si gaar ah uga soconno hanaanka doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka ah ee ku nool magaalada Stockholm ayaan halkan ku joognay oo kula soconay caawa waxaan halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda dalkeena mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa taariikh cajiib ah waxaan u kala wareegayaa madaxweynaha iminka ka sii degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka halkan jooga ayaan rajaynayaa in iyaguna dareenkooda caawa ay nala muujiyaan waa daawan doontaan insha Allah بسم الله ورنتي وان همبليينينا sida quruxda badan oo doorashadu u dhacday walwal badan ayaan qabnay runtii waxaan ku faraxsanahay inay Soomaaliya si wanaagsan oo dimuqraadina inay uga dhacday doorashadii madaxweynahana waa u hambalyeynayna hadee qodbadiisana aad iyo aad baan runtii uga helnay marka waxaan leenahay madaxweyne sidaas aad u hadashay hawsha ugu aad iyo aad ugu hambalyeynayna madaxweynaha cusub tobnaad ee la doortay waxaan leenahay madaxweyne yaa bari yaa shalay lagu mashquulin bariha laga fikiro aad iyo aad u mahadsantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda Soomaalida waa salaamaya madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna ha u fudaydiyo xukunka loo dhiibay السلام عليكم ورحمة الله وهبلينا مدحوينها عصب نحن رجينا حكينا إلهي أفضل صومالي هشيس دونيدن هشيس لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هلكن هنبليا يدعي بوجادنا قدر يا مدحوين حسن شيخ محمود وكل يستي مدحوينها طبعا للجمهورية الفدرالية الصومالية حنا هنبليا حلك الله حقوق جولية الله حقوق أسطوران لنا هي أدبل ما سنتين تاجراش دمان يجيب هامبا صومالي هشيس دون هشيس لها وما سنتاي بسم الله الرحمن الرحيم وحان دمان هنبليا ودرها أمة الصوماليات ومدة laga joogo hadda 2 sano ku jirtay walwal oo shaki ku jiray inay sadacayeen tii maanta dhacday oo kale marka waxaan dhammaan u hambalyeeynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kale toon u hambalyeeynaa madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan leenahay xilkan adag iyo Soomaalidan adag iyo waxaan kugu soo wajahan Ilaahay ku dhib yareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan hambalyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan leeyahay hadaan nagu fiicnaano madaxdeena way fiicnaan aan la shaqeyno la garab istaago ana loo duceeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaa farxad weyn iyo amaanta inaan agaasinkan iyo kulankan quruxda badan aan ka shaqeyno aan u diyaar garoobay kuna daaweynayna doorashadii madaxweynihii tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo caawa halkan loogu doortay ama Soomaaliya loogu doortay madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo runtii shaqo aad iyo aad u adag ayaa ku sugayso wadan dhibaatooyin badan soo maray dhowrkii sano u dambeysay booga badan oo dhayid u baahan waxaana mataqaana aad u soo dhaweynaa hadalkaagii ahaa in argoosi uusan jirin oo si wanaagsan oo walaaltinimo ku jirto wadanka loo daweyn doono waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحنو همبلينا مدحوينها عصب عصبين هذنا حسن شيخ محمود حلينا حلك الله كو فودايو إلهي كو استرو هالقدك قروح بدن آيات كده واجسي سومالي هشيسة دوننا اللي هشيسة أنا تريد كوش قيسا يا رجالنا إن شاء الله تعالى همبلينا كلنا مدحوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد marka koobaad waxaan u hambalyeeyaa ummadda Soomaaliyeed oo maanta nasiib u heshay in uu mar labaad madaxweyne u noqdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana leenahay Ilaahay xilka maanta lagu doortay in kugu asturo waxaana leenahay insha Allah taala oo rajo badan aan ka qabnaa in hal ku dhagaagii aad doorashada ku gashay aad ka dhabayn doonto Ilaahay idinkiisa aan ku mahadnaa anna waxaan leenahay Ilaahay mas'uuliyadda weyn Allah kugu asturo billahi tawfiiq بسم الله وحنا هلكن همبليو قدرينا مدحوينا صومالي مدن حسن شيخ محمود وحلينا مدحوينا همبليو الله كوفضي حلك تقولي ستمانتي وحكون قانا
inaad ka shaqayn jirtay 30 sano lasoo dhaafay nabadda iyo waxbarashada waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inaad barwaaqo u horseedi doontid waana calaamadaha ugu naqaana inaad wanaagga ka shaqaysid maanta Soomaaliya aad iyo aad u nasiib badan tahay inay heshay madaxweyne khibradaas aqoontaas leh iyo fikirkaas leh marka waa hambalyeynayna ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay xasan sheekh ka faa'iideysta in sidii loola shaqayn lahaa dawladda uu hogaaminayo barwaaqan insha Allah hadii aan la yiraahdo gaari doona hadii aan la idmo oo hambalyo ummadda Soomaaliyeed waxaan maanta xasan sheekh aan hambalyeynaa madaxweynaha waxaan rajaynaynaa ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiisa adduunkana heshiis lahaa hambalyo Soomaali oo dhan halkan waxaa uga hambalyanayaa madaxweynaha Soomaaliyeed ee la doortay qulubta Soomaalidana ku jiray in badanna ay tabeen hambalyaan leeyahay duni heshiisa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah haleyskaas ayaan u rajaynaynaa inaad ka dhaweysid sida aan muujisay dulqaadka iyo mataqaanaa inaad tiri dadka Soomaaliyeed hays afiyaan waa ku mahadsan tahay madaxweyne waxaan ku rajaynaynaa guul salaam calaykum